waxaan maanta u taagannahay doorashadii gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso iyo ku-xigeenkiisa. waxaan marka hore rabaa inaan ku hormaro meertamaleedkayga oo aan soo koobo inkastoo aan u qaybiyey xildhibaanada warqaduna ay hortooda tahay. waxaan ku dhashay magaalada Boosaaso sanadku markuu ahaa 1981 waxaan kaga baxay dugsiga hoose dhexe degmada Boosaaso dugsiga sare Boosaaso ka qaatay iskoolka Sheekh Xamdan bin Rashid Al Maktoum dugsiga dhexe iyo hoosena waxa ku qaatay Imam Shaafici. waxaan bilaabay jaamacadda Bidam deetana waxaan ka shaqaynayay shirkadda Marero waxaan kadib dalka dibadiisa u aaday jaamacad waxaan bilaabay shahaadada civil engineering jaamacadda University of Technology Malaysia waxaan dhameeyay sanadkii 2010 waxaan sameeyay sanadkii 2002 alifkii Alison College Ireland Diploma of Human Resources 2011 waxaan sameeyay School of Professional and Continuing Study Space UTM Microsoft Project Certificate waxaan sameeyay National Institute of Occupational Safety and Health in Malaysia Diploma Certified Occupational Safety and Health waxaan iminka ka wadaa Master Atlantic International University Hawaii USA. waxaan rabaa iminka inaan guda galo khudbadaydii. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Puntland gaar ahaan degmada Boosaaso maalmihii barakaysnaa ee Ciidul Adha. waxaan u rajaynayaa muslimiinta waajibaadka xajka guudatay in eebbe weyne ka aqbalo intaan gudanna uu eebbe gaarsiiyo. mudanayaal iyo marwooyin waxaynu maanta u fadhinaa sidaan u dooran lahayn gudoomiyaha golaha deegaanka iyo ku-xigeenkiisa ee magaalada halbowlaha waa dhaqaalaha Puntland ee Boosaaso. sida la wada socotaan magaalada Boosaaso waa halbowlaha horumarka Puntland waxay u baahan tahay hoggaan daacada si hagar la'aan ah ugu shaqeeya una gaarsiiya horumarka higsanayso. Boosaaso waa hooyo waxay u baahan tahay xanaano gaar ah. haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya waqtiga kooban ee la siiyay waxaan xildhibaanada sharafta leh ka codsanayaa in ay ogolaadaan hanashada hoggaanka golaha deegaanka degmada Boosaaso. waxaan xildhibaanada sharafta badan ee wakiilka ka ah shacabka reer Boosaaso la socodsiinayaa in haddii alle idmo aad ii doorataan xilka gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso idaan inay ballan qaadayo inaan ku dhaqanka shariicada islaamka axriga iyo dastuurka ummadda Puntland ku heshiiyeen midnimada dadka isku wadaagga ah siyaasad furfuran sugidda nabadgelyada magaalada Boosaaso ka shaqaynta horumarinta arrimaha bulshada kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bilicda iyo fayadhowrka magaalada iskana ilaaliyo hantida ummadda reer Boosaaso inaan ku shaqeeyo daacadnimo cadaalad hufnaan iyo howlkarnimo anigoo kaashanaya golaha deegaanka degmada Boosaaso gudiyada dawladaha hoose waaxyaha dawladaha hoose gudiyada xaafadda tuulooyinka aqoonyahanka golaha dhaqanka ururada haweenka ururada dhalinyarada iyo dhammaan bulshada deegaanka. Boosaaso waa magaalada ganacsiga Puntland iyo deegaanada hoos yimaada u gaara horumar ballaaran oo taaban karo muddada 5 sano ee soo socota. waxqabadkaygu waxaan ku soo koobay golaha deegaanka nabadgelyada caafimaadka waxbarashada wadooyinka dhulka maamulka iyo maaliyadda dawladda hoose. golaha deegaanka waxaan sharaf iyo qadarin kula shaqayn doonaa xildhibaanada golaha deegaanka waxaan ka shaqayn doonaa midnimadooda horumarkooda aniga u horseedaya golaha deegaanka jawi ka duwan jawigii hore ee lagu shaqayn jiray. waxaan dhammaan ka wada howlgelin doonaa shaqada horumarinta degmada anigoo eegi doona habba baahiyaha jira ee lagama maarmaanka inay ka howlgalaan degmada.
waxaan tusi doonaa inay tahay mas'uuliyad wadareed mudan in la wada guto waxaan kula shaqayn doonaa habda furnaana iyo miisaaniyad golaha deegaanka ansixiyay oo laga baaraan degay waxaan diyaar u ahay inaan hirgeliyo hanaanka xisaab xilmale nabadgelyo waxaan xooga saari doonaa ammaanka magaalada Boosaaso iyo deegaanada hoos yimaada anigoo la kaashan doona maamulka gobolka iyo taliska kala duwan ee ciidamada booliska iyo kuwa kale waxaan tayin doonaa ciidanka dawladda hoose iyo dhammaan laamaha ammaanka anigoo la kaashanaya maamulada kale ee degmada gobolka iyo taliska waxaan taaban gelin doonaa isdhexgal bulsho anigoo xaafad degmo ku dhex mari doona si loo helo bulsho u helan maamulkooda horumarkooda ku kalsoon ciidankooda garanaya amniga ahmiyadda amnigu leeyahay waxaan hirgelin doonaa iskaasiin casri ah oo laamaha ammaanka u gaara bulshada kala xiriiraan saldhigyada marka ay arkaan wax rabsho ama arbush dhacaya waxaan dhisi doonaa guddi xaafadeed tayo leh waxqabad leh iyaga xoojin doona awoodooda iskuna xiri doona kuwaas oo leh siyaasad ay ku shaqayso dawladda hoose maamusho iyo dawladda Puntland waxaan awoodi doonaa jawi horseeda in muwaadin kasta ka qayb qaato nabadgelyada degmada iyo deegaanka hoos yimaada caafimaadka waxaan xooga saari doonaa inaan kaabo baahida caafimaadka ee jira magaalada Boosaaso waxaan abaabuli doonaa waaxda fayadhowrka oo in muddo shaqeeya waxaan u diyaarin doonaa shaqaale aqoonteeda leh anigoo la kaashan doona bulshada aqoonta u leh iyo ururada bulshada wasaaradda caafimaadka iyo inta khusayso sidoo kale waxaan samayn doonaa wacyigelin nadaafadda oo joogto ah si loo helo magaalo nadaafad buuxda leh waxay ognahay Boosaaso inay dhex yaaleen dhagax qashin baco iyo wax badan oo ishaadu markay aragto ay ka naxayso waxaan hirgelin doonaa in magaalada Boosaaso hesho hospitaal weyn ama ankaawo hospitaalka hadda jira oo leh adeegyo kala duwan anigoo la kaashanaya hay'adaha khayriga hay'adaha qaramada midoobay ganacsatada dawladda Puntland ee dhexe iyo wasaaradaha ay khusayso ururada bulshada ku dhaqan degmada Boosaaso si loo helo hospitaal lagu aamini karo adeeg caafimaad oo kaamil oo dhammaystiran waxbarashada mudan iyo marway deegaanka degmada Boosaaso waxa ku yaala in ka badan 100 xarumood oo dugsi hoose ku dhawaad 20 dugsi sare iyo in ka badan 6 jaamacadood ardayda wax ka barata goobahaas waa in ka badan 50,000 oo arday kuwaas oo ah mustaqbalkii dalka waxay u baahan yihiin inaan ku garab galno waxbarashadooda isla mar ahaantaasna dhiirigelin ay helaan waxbarasho tayo leh sidoo kale qiyaas ahaan tiro ku 3 jibaaran ayaan fursad waxbarasho helin kuwaas oo xilna ka saaran yahay sidoo heli lahaayeen waxbarasho hadda waxaan ka caawin doonaa bahda ardayda si ay u helaan jawiga degan oo ay wax ku bartaan waxaan sidoo kale dhiirigelin joogto ah u samayn doonaa ardayda anigoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada iyo cid kasta oo ay khusayso arrintaas hadduu ay beedo wadooyinka waxaan isbeddel weyn ku samayn doonaa qaab dhismeedka wadooyinka magaalada Boosaaso iyo hab isticmaal waxaan hirgelin doonaa la shaqayn doonaa capacity building u samayn doonaa anigoo kaashanaya ciidanka wadooyinka oo si dhab ah inay uga adeegaan bulshada waxaan xooga saari doonaa in la helo hagayaashii gaadiidka oo afka qalaad loogu yaqaan traffic light waxaan iftiimin doonaa wadooyinka banaynta kuwa isku raran iyo ka hortagidda baakin xumada waxaan hirgelin doonaa boosteejo guud ee degmada Boosaaso taasoo ay ka baxaan dhammaan gaadiidka isaga kala goosha deegaanada Puntland Soomaaliya iyo inta ganacsigooda waxaa la socotaan inay Boosaaso baabuurta u baxa degmooyinka magaalooyinka waaweyn sida Gaalkacyo Garowe Qarqo iyo dhammaan deegaanada kale ay ka baxaan wadooyinkii loogu talagalay inay bulshadu isticmaalaan taasoo caqabad ku ah isu socodka gaadiidka indhahana aynu ka awdanay
waxaan hirgelin doonaa haddii allah wada idmo oo adii doortaan hoggaanka golaha deegaanka waxaa loo yaqaan public parking oo ay dadweynaha dhan isticmaali karaan kuwaas oo laga dhisi doono meelaha halbowlaha oo ganacsiga hoteelada xarumaha dawladda iyo xarumaha caafimaadka anigoo la kaashan doona hay'adaha caalamiga kuwa maxalliga iyo ganacsatada magaalada waxaan xoogga saari doonaa in dhammaan xaafadaha Boosaaso ku sameeyo qiimeyn ama kurgalid wadooyin cusub si horumarka wadooyinka uu wada gaaro dhammaan xaafadaha magaalada Boosaaso anigoo kaashan doona hay'adaha caalamiga waxaan wadooyinka qaar u samayn doonaa hal haad kuwa aan u qalmin laba haad taasoo loo baahan yahay bulshada reer Boosaaso inay ku baraarugaan waayo wada aan laba haad noqon karin haddii baabuurtu isku dhaafto waxaa ka iman kara accident badan iyo in bulshadii ama qof caafimaad loo wado ay khatar ku noqoto inuu gaaro meeshii loo waday dhulka magaalada Boosaaso waxay ku taallaa buqcad istaraatiiji ah waxay leedahay kheyraad badan waxa ku yaala dekada kaliya shaqaysa leeyihiin ummadda reer Puntland iyo gegida dayuuradaha ugu weyn ee deegaanada Puntland magaalada Boosaaso waxaa ku xeeran dhul kheyraad badan waxaana ballan qaadayaa inaan ka shaqeeyo sidii loo sidii si siman looga wada faa'iideysan lahaa kheyraadkaas loona sugi lahaa ammaankooda sidoo kale waxaan ballan qaadayaa dhulka bannaan ee aan weli la degin inaan u sameeyo town plan qorshe magaaleed si loo helo magaalo habaysan meel kasta oo la degayana ay noqoto meel laga baaraandegay waxaan kaloo raadin doonaa dhul bannaan oo laga furiyo mashaariicda dadku ka wada faa'iideysan karaan oo ay degmadu u baahan tahay si ay mashaariicdaas u fashilin deegaankan u dhaafin waxaan Boosaaso insha Allah tacaala haddaad ii ogolaataan inaad ii doorataan hoggaanka golaha deegaanka ka hirgelin doonaa ii sheegay Siri Garden ama waxa jardiino bulshadu isugu timaado laguna caawiyo maamulka iyo maaliyadda dawladda hoose mudan iyo marweyn degmada Boosaaso ah isha dakhliga iyo magaalada ganacsiga Puntland ma habaysna miisaaniyadda soo gashay iyo kharashka ka baxa waxaan ballan qaadayaa haddii aad siisaan codkiina inaan dejiyo miisaaniyad isu dheelitiran oo ku filan baahiyaha deegaanka kharashkuna ku baxo si waafaqsan miisaaniyadda waxaan kor u qaadi doonaa ilaha dakhliga iyo wax soo saarka degmada waxaan si joogto ah u bixin doonaa mushaharka shaqaalaha dawladda hoose waxaan ku soo kordhin doonaa degmada habka isla xisaabtanka anigoo u soo bandhigi doona si joogto ah muwaadinka laga qaaday cashuurta wixii wax loogu bedeli lahaa insha Allah tacaala waxaan ballan qaadayaa intaa ballanqaada aan soo sheegay inaan ugu shaqeeyo si daacadnimo ah karti leh hufnaan leh waxaan ganacsatada culimadiinka aqoon-yahanka dawladda ururada bulshada xildhibaanada dhammaan ka codsanayaa haddii xilkan lay doorto inaad igula shaqaysaan si daacadnimo leh si aynu magaaladeena u gaarsiino horumar soo Puntland waa hooyadii federaalka Boosaasona waa hooyadii Puntland waa mahadsantihiin waa in salaam